soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay inaynu kala qaadanaa waa qodob muhiim ah oo meesha yaala raggan maalin walba ka soo hadlaya la leeyahay waxa kaliib ka soo duubeen keelka Hargeysa qodob baan ka oranayaa ninka odayga halka ku sawiran ee keelka ka soo hadlay war sugan baan idinka sida aan filayo inuu sugan yahay aan u malaynayo dhalinyaradan habar jecleen la duubay ee xidhxidhan qaybna imanka lagu sii daayay damiinka qaybina xaraysan tahayna iyo waxa lagu xidhxidhaayana iyana qodob iyo labaan isdul taagaya biliisiga sheergaree oo soo dhawow mujaahidalaatee soo dhawow kollay kulligeen isbedel doon baynu nahay waxaanu la dagaalamaynaa maamulka fashilmay ee caguhu go'een ee aan dhinacnaba u socon ama bislaaday inaynu qodob iyo laba halkan ku kala qaadanaa waa muhiim maxamed xaaji ibraahim cigaal ilaahay ha u naxariistee ayaa odayga maanta maamulka Soomaaliland ku fashilmay hoggaanka loo dhiibay ee lagula lumay ayuu wasiiru magacaabay baa la yidhi oo aan soo shaqaba ku lahayn waxan dabeedna waxa la yidhi waa eri haddana toddobaad kadib uu soo celiyey haddana waa eriyey haddana waa soo celiyey mar saddexaadkii dambe u eriyey baa odayaal Sacad Muuse oo isdaba socdaa u tageen waxa dhahay war maxamed xaaji ibraahim cigaalow maxaad ninka ka silcinaysaa ee aad marra ka eriyeysaa marra ka soo celinaysaa ninka marra la eriyey marra la soo dhaweynaya waa oday Muuse ee cigaal kelmadda xalgala baa laga qoray wuxuu yidhi dhibaato kale ma jirto ee waa rafadkay rafanaysay dowladdu ee dhibaato kale oo jirtaaba ma jirto waa rafadkay ee dowladdu rafanaysay ee dhibaato kale ma taalo iminka maamulkii rafadkii u dambeeyey ayuu ku jiraa dhallinyaradii beelweynta habar jeclo wixii baaqi sii ahaa ee dabadda sii marmarayay ayaa jeelasha loo taxaabayaa inamiya hablaba nimcadareejo haddaa laga sii daayay jeelka sida warka aan ku helay oday adeerkeeda baa damiintay oo ciidankii odayga maamulayay garhka qabtay biliisiga sheergaree muwaadin waayahay aan ku horreeyo qodobka aan bilaababa beeshii habar jeclo ee halkaa burcaya joogtay dhulka iyo Caynabiyo gobolka Sanaag xarig baa ku socda aan rag iyo dumar loo aaba yeelaynin habeen hore ilaa xalay afar baa la xidha dhalinyaradii habar jecel ee bulshada joogtay hal qodob baa lagu haystaa oo muhiimadda meesha taala ay tahay iyagu kiisas kale sheegayaan laakiin qodobka lagu haysto anigu waan garanayaa idinkuna waa garanaysaan waxa lagu haystaa dhalinyaradu markay aragtay inaan maamulku dhinacnaba u soconin ee fashilmay isbedel doon bay u bateen sida nimcadareejo iyo ilka case iyo adigu inan kalo Cabdilaahi la yiraahdo isna la jiiday isbedel doonkii waa dad baraha bulshada jooga baa la yidhi wax li dadkooda ay hanuunin ku sameynayaan sidaanu hanuuninta ugu wadna dadka iyagoo kale oo qofka caadiga makhaayadaha fadhiya iyo qofka baraha bulshada jooga waa kala nooc markay isbedel doon noqdaan waayahay waxaan idin sheegayaa habar jeclo xarig baa ku socda wax kalena laguma haysto ee waxa lagu haystaa sida isbedel doon u noqoteen ama ugu biirteen isbahaysiga mucaaradka ah ee ay ka iyo wadani hogaaminayaan
xabsiga berbere habar jeclaa ka buuxda kimistay ku go'deen xabsiga hargeysa iyadaa ka buuxda xabsiga burcana iyadaa ka buuxda hase ahaatee dadkaannu igmanay maba hadal hayaan waxay ka sii jecel yihiin inay odayga leefleefaan ayay ka sii jecel yihiin soo dhawow cali jidow waxay ka sii jecel yihiin inay odayga leefleefaan iyo maamulka fashilmay ee iskaba qaawan ee aan ciidan inoo wadin saanad inoo wadin xuduudna warkii tuurba maamullo kalaaba laga dhisiyo dowlado kale waxaan leeyahay biliis iga sheergaree muwaadin dhallinyarada habar jeclee jeelasha lagu sii duduucayo ee rag iyo dumarba leh wax kale laguma haysto waa been ninka wax kale kuu sheega waxaa lagu haystaa sidaa isbeddel doon u noqoteen sideebaa xusbiyada mucaaradkaa wadaniya kaah u taageertaan sidaa odayga qaawan uga dareertaan ayaa lagu haystaa wax kaloo lagu haystaa ma jirto hase ahaatee way jiraan dembiye kale oo loo samaynayaa ilka case ninkalena wuxuu hi war gabadhaydii ciidanka milatarigaa baa dilay hase ahaatee nuux baannu ballansanayn hargeysaan tegey bil baan joogay waan ku goostay cid ila hadasha maan arag garyo garowshiiyo midna waa arkayseen askartii ku soo dhaawacantay laasacaanood oo gidaar walbale war maxaa dhakhtar naloo geyn waaye war maxaa mushaharka nalooga goostay qaarkoodna say dhakhtar u sugayeen dayac u dhinteen waynu arkayn waar iga sheergareedee maxaad iga eegi waayahay waxaan idiin sheegayaa hadda dhallinyaradii habar jeclo xadhig baa ku bilaabmay baaqigii burca joogay ee dhaawacana ka badbaaday hargeysa inay ku abayuusnaadaanna ka badbaaday burca ayaa laga soo afduubanayaa sida warka aan ku hayo nibcadarajo sida la ii sheegay haddaa damiin lagu sii daayey hase ahaatee waa la daba jabacsanayaa cidi kama hadhin ilka casana waa afduuban yahay cabdifataax carab nin la yidhaahdo 2 toddobaad xidhanna waa afduuban yahay cabdilaahi nin la yidhaahdo kaloo habar jeclaana xalay baa la xidha xalay ayaa isagana la xidhay waa xadhi ku socon doona dhallinyarada burca joogtay habar jeclee isbeddel doonka ah waa xadhi ku socon doona ma aha mid soo afgo'aya wax kale laguma haysto ilaahigoog waxaa lagu haystaa sidaa isbeddel doon u noqoteen sidaa maamulka qaawan ula yaabteen sidaa odayga fashilmay ula yaabteen raalli ahaada walale odaygu hurdu ka soo kacay barraalli ahaada hargabna waa iska jiraayo joojuye wax kale laguma haysto habar jeclooy dulmigaa inagu socda ee aynu aragno waa mid la dagaal gelinayo mid soo dhaawacmaan dhakhtar loo wadin iyo mid hadda xadhig lagu sii duduucayo oo loo qalqaalinayo haddaad garan weydo yeelka bari oo dhan dagaal buu u qorsheeyey galbeed oo degmadiisa gabiilay u horeysana gobollo u qorsheeyey iyo inay awdal kala badh gabiilay la raaciyo kala badh hargeysa kala badh ogla gabiilay la raaciyo wixii waddanka dhaqaale yaallay loo afduubo ayuu u qorsheeyey bari oo dhan oo caynabi iyo qowligud ugu horreeyaanna wuxuu u qorsheeyey dagaal buu u qorsheeyey iyo in lagu dagaal galo oo dadkooda waxna lagu dagaal galo waxna xabsiyada la geeyo ilaahigoog waa intaa aan kuu sheegay inaan muuse wax uga dheeraadi jirin wuxuu ku dadaalayaa inaan sanduuq la dhigin tog dheer oo qoorligud iyo eeriyadeeda gobolka sool oo gobolka saraara iyo sanaag inaan sanduuq la dhigin baryahanba sanaag dil baa ka socda 80% xaafadda iyo odaygaa ku lug leh sida warka aanu ku hayno oo ku dadaalaya inaan sanduuq la geynin 80% waxay dagaal kula jiraan cabdiraxmaan ciriye maxamuud xaashi ayaa u muuqda caamay inoo arkaan gaadhi u saaran oo iyagu leeyihiin waayo 80% dhaqaalihii waddanka lama hoos geysteen gabiilay innagoo daawanayna
berberiya gabiilay boqolkiiba 90 dhaqaalihii waddanka lama hoos geysteen 30 sannadood inagoo eegayna oo soo tuban macnuu maaha inaan reero gaara dagaal kula jiro iga sheergareeyo walaalayaal waayay qodobka halkaasaan kaga tagay waxaan leeyahay tii habar jeclo ahayd baaqigii dabadda sii joogay ee dhaawaca laascaanood ka soo badbaaday ama maxaabiis inay noqdaan ka soo badbaaday waa intii odaygu ku shaqaysanayay waxa ku socda xarig baa ku socda oo u bilaabmay wataa dhallinyaradeedii isbedeldoonka dhiiri gelisay wataa leeriyanayo ila soo eg ilkacaase waa xabsiga nibcadarajo haddaa loo baryo damiin lagu sii daayay hase ahaatee waa la daba joogaa ina kaloo aadan dheere la yidhaahdo waa la xareeyey cabdifataax carab oo beesha garxajiisi 5 habeen 2 toddobaad waa xaraysan yahay dadka wax kale laguma haysto iyo gobolladii waxa lagu haystaa sidaa isbedeldoon ugu badateen ayuunbaa lagu haystaa kiiskii la doonaha la soo istaaro macmala waxa lagu haystaa sidaa isbedeldoon u noqoto qodobka habar jeclo bartaasaan kaga tagay waxaan leeyahay annagu kiina dhaawaca iyo kiina la xidho iyo kiina la afduubto iyo kiina lagu gafayo inta midna ka aamusi mayno ee waanu hadlaynaa oo waanu idiin sheegaynaa ilaa iyo inta wax fahmaysaan mooyaane idinkama daali doono ujeeddo kale aanu idinka leenahay ma jirto waxaanu idiin sheegaynaa kaliya dulmiga idinku socda dhaawaca idinku socda xariga idinku socda abayuuska idinku socda aakhirka u dambeeya waxa weeye soo galootigu hargeysa waa ka baxaya aakhirka u dambeeya xigmadda habar jeclo sugaysaa waxa weeye kooda hargeysa ku abayuusan waxa weeye soo galootigu hargeysa way ka baxayaan oo hablu ku dhaga hadlaan oo ku yidhaahdaan oo u sheegaan waxaa bad khaasa dadka idiin sheegaya maaha ummadaha kale halkaasaan habar jeclo kaga tegayaa qodobka xiga waxaan u gelayaa ninkaa dhulbahante ee ka soo hadlay jeelka horta kamaradan jeelka ka dhex socotaa waa ujeedu xaafadda ayaana wadata iyo maamulka fashilmay ee qaawan ayaa wata maaha wax iska yimi maaha kamarad iska socota kalsooni baa looga duubayaa oo loo hayaa oo loo wadaa oo uu u hadlayaa maanta iyo maalintii hore ninkii hadlayayba ninkani waa nin dhulbahantaa oo ugaariyahana sida warka aan ku hayo haddaba ma maxaabiistii dagaalkii gooja cadde lagu soo qabtayba mise waa ninkii iskale u xidhan oo ka horreeyey warkaa ninkani xogta sidaan ku helayo waxna way ka bedelaan karaan waa nin ugaariyahana wuxuu u xidhan yahay nin dhulbahantaa ahoo uu dilay waxaana soo qabatay sida warka aan ku hayo dowladdii siileeyo ee hore ayaa soo xidhay kiiskaasuu u xidhnaa oo dil buu ku xukunaa ee maaha maxaabiistii lagu soo qabtay laascaanood haddaba yaa khasbaya kamaradaha ka buuxsanaya maamulka fashilmay maxay tahay sababtuu u kaleeyay meeshu waa jeel ee kamarada laysdaba sido oo dheeli laga duubo waa wax ku talagala ee maaha wax ka soo dhacay waa markii saddexaad ee kiliib ka yimaado jeelka hadduu mar ka yimi mar labaad iyo mar saddexaad siduu u socdaa caqligaagu waa inuu wax kuu sheegaa waxaan idiin sheegayaa ninkani waa nin ugaariyahana wuxuu u xidhan yahay nin dhulbahanta ah oo uu dilay xilligii dowladdii siilaayo sida xogta laygu siiyey oo dil baa lagu xukumay sida warka aan ku hayo kamaradan oo ma ahayn kuwii lagu soo qabtay gooja cadde iyo dagaalka midna shaqo kuma lahayn oo kuma jirin maxaabiistii dagaalka ninkani waa ka horreeyey waayahay waxaan idiin sheegayaa walaalayaal waxaan idiin sheegayaa qodobkaa iyo ninkaasi waa halkaa kamaradiisa maxay uga jeedaan haddaba maamulka fashilan ee duubaya waxay ka sii shaqaynayaan sida dhulbahanti iyo habar jeclo dagaalkooda u dhiiri gelin lahaayeen ama isaaqa bariga iyo daahartigaas isugu dhirin lahaayeen ayay ka shaqaynayaan ee dhibaato kaloo jirtaa ma jirto ayay ka shaqaynayaan waxay markaa ku dadaalayaan in maxaabiistii ay kamara ka duubaan ahaan dhibaato sheega si loo dhibaateeyo maxaabiistii laascaanood lagu hayay kadibna loo dhiiri geliyo dagaal ciilqabnimo ah oo dadkii isugu yaacaan
ayaa la dhiirigelinaya waxa kamarado iyo hees iyo hawl iyo socota waxa weeye dhiirigelin la isku dhiirigelinaya dadkaasi say isu dili lahaayeen wax kale oo socda ma jiro boqolkiiba 80 cid la dhiirigelinaya inay dagaalantaana waa habar jaro dhibaato kale oo ina haysataaba ma jirto odayga fashilmay xilki ka dhamaaday waqtiga ka dhamaaday doorashada loo diyaarinayo hawsha socota iyagu waxay dhiirigelinayaan dagaal wax la yiraahdo inaguna waxaynu haynaa dariiq doorasho la yiraahdo kala laba dariiq waynu raacaynaaba ninkaana warkiisu sidaas igu soo gaaray kamarada marba la soo duubay jeelka laga soo duubayana waa dhibaato iyo fariin loo dirayo dadka laascaanood ku xidhan oo la leeyahay xaadul bahantiya dadka maxaabiista haysto u dhibaateen weydana ka eeganaysa waa inta si ay u dhiirigeliyaan dagaal ka dhaca bari waa inta aad iyo aad baan idin salaamaya wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh